قال الحبيب عبد القادر ابن أحمد السقاف رضي الله تعالى عنه وأرضاه إمام كاس مقعي صلى الشيخ يا وحويري ورك إن لا دوحه كدبنا عمل فل للي ماذا لربه وحويري من أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كانت له 10 ضمانات تعبير كفيري قرأ معها أكثر قفكي بدية بدينتنا وحي دلباني جوكتين موكته كثرة إيا الدوام ما بك لها رنبا شيء بدي هدين لغنه جوكتي أو دائما وإساقد حجرته قفكي يصلي النبي بدية أو جوكتي طوبان الضمان يوهله ضمان سوى ما تقاني فقه الضمان يا كفاله يا كالجرة ضمان تحوله يقشاه ضمان المال كفالة دون الجرك يقشاه كفالة البدن adoo laga jacjacsiinayo oo qof amaah kugu leh suuqa kugu dhaxaysto qof haduu yimaado uu dhaho qofkan ana damaantay xoolihii lagu lahaa waa lagu sii deynaa adoo qof dhaawacay ama dilay oo dhuudhuumanaya hadii lagu qabto qof uu yiraahdo qofkan ana kafaala qaaday jirkiisoo dhanan kafaala qaadee aniga hal ii daayo marka waxa laga hadlayo waa damaan oo ilaahay xaqiisa ka iimaanaysa Allah midda koowaad waxa waaye ضمان بالرعاية الكبرى من المولى سبحانه وتعالى صلي النبي هداد بدي سؤال جوكتيسو ضمان وحد هيستا إلهي إنو كو إلالنا يه إلالين وين إلهي الله شاقي إلالنا الله شاقي إلالين تنا ويننا الله شاقي بل أدوكو فيري استاف إيه معها إلهي كو إلالنا إلالين تنا مدوين واي حنونا لغا إلالنا صبالنما لغا إلالنا قرح يقاب درودنا لغا إلالنا في حفظ الله يكو جرتاوي ضمان تلبات وحاوي ضمان بالرضا من المولى سبحانه ومن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وحاد هيستا ضمان ربي يا رسول إني كار راض النقدان waxa loo xurtooday oo loo daalay ilaahay ridihiisa iyo ru'yadiisa sooma halkaas uu ka jira damaanta saddexaad waxa way damaan bil qurb min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam damaan waxaad helaysaa inaad nabiga u dhawaato adduun iyo aakhiraba damaanta la xiriirta waxa way damaan برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ضمان وحد هيستا نبي محمد إناد أركته جيف إيا سوجيت على محمد مركا النبي محمد مرنا أدوو مرنا جيف إيا سوجيت كو أرك وعجيب يا موقتا ضمان تلحرير توحاوي ضمان بتيسير المعاش ضمان وحد هيستا نولش إن لغو فضوديه ayadoo la da'yar yahay dadka qaar cirada waxa ka soo saaray noloshiisu ku xasilin lahaa biilu raadina wax kale uu raadina inta wax barasho beesa u raba aroos u raba ilmo korin u raba nolosha oo lagu fududeeyo ilaahay fadligiisa kadib waxaad ku gaaraysaa salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam محمد وآل محمد damaanta ku xigta waxa waaye damaanun binujhi matlabih ضمان waxaad helaysaa waxa aad dalbayso xajooyinkaaga inaad ku guulaysato tii hore waxa waaye noloshaado dhan lagu fududeyna tan waxa waaye dana gaar soo malihid tusaale xaj iyo umra inaad aada oo kale inaad quraanka barato inaad cilmiga barato zawja saalixa dhurriyatan tayyibah waxa soo dhan ujeedadaada inaad ku guulaysato ضمانته كسينيسا وصلي النبي عليه الصلاة والسلام صل على محمد أفر نودمان مدهر وحواي ضمان بالحفظ من عناء الدنيا والآخرة وتعبهما ضمان وحد هليساء إن إلهي كإلاليه دب الدون يدب آخره دال الدون يدال آخره الدون إيا آخرة نوك وحي لديه جري ما أركيسد
dhiboo dhanna ma arkaysid salliga nabiga barakadiisa. اللهم صل على midda kusii xigta waxaa waaye damaanun bisacaadati fi dunya waalaakhira. adduun iyo aakhiraba inaad dhurowdo. sacaado waxaa la yidhaahdaa almowtu cala aliimaan. moogta waxaa laga fakaraa bilowgan iyo bartanka iyo maha khaatimada wa kala buxu waa khaatimada inaad dhurowdo oo khaatimadaada ay wanaagsanaato. salliga nabigaad ku gaareen. صل على محمد labada qodoba ugu dambeeya feeri ilmihii qiyaamay noqdeen moogta wax dhib badan oo dadka tuuriyeeya oo waxba aan baranayn qaaraa iskorisa qaaraa joqraa ilmihii murug weyn yaa waalidaanka ka haysta. ilmahaaga cajab inay noqdaan ma rabtaa haa damaanun bilbarakati fil awlaad. damaan waxaad helaysaa in ilmahaaga la barakeeyo. cilmiga sharciga barako yuu ka cabiray. waxa lagu dhaqan yahay waa barakay moogta ilmihii inay caafimaadaan inay fahmo yeeshaan inay qur-aanka iyo cilmiga bartaan cibaadada inay ku barbaaraan inay noqdaan qurata acyun. labada waalid indhahoodu waxay ku qabowsadaan. wax kastoo canugaaga aad la jeclayd wiil iyo gabar wuxuu ahaadaba salliga nabiga barakadiisa haddaad badisood joogtayso yaad ilmahaaga ka arkaysa ilaahayna uu kaa siina. qodobka tobnaad uguna dambeeya waxaa waaye damaanun bilmowti calaa laa ilaaha ila allah. جل جلاله warkii hadaataa lasii adkaynaa sooma aragtid macnaha khaatimada inay ahmiyad gaara leedahay. sacaadadii inta lagu gaabsaday lagama gudbin qodobkaana haddana lagu sii adkay. tii hore waxay ahayd adduun iyo aakhiroo la dhuroobo damaanteeda. tanna waxaa waaye tawxiidka inaad ku dhimato. marka haddii beenbeen iyo xamaasad iyo lama rabo bahashu waxay rabtaa go-aan